gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biix cabdi ayaa booqday garoomada kubadda cagta ee tartanka bisha barakeysan ee rabadaan uu ka socdo ee suldaan aadan sheekh nuur xawaadle iyo dhalinta kacaanka iyadoo xisbiga kulmiye agab ciyaareed oo dhammaystiran uu ugu deeqay ciyaartoyda garoomada ku ciyaarayay iyo guud ahaanba ciyaartoyga dalka oo dhan gudoomiye muuse biix cabdi oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan xisbiga kulmiye iyo xukuumadda talada haysa ayaa booqday garoonka suldaan xasan barre oo ku yaala degmada macalin haaruun iyadoo murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye uu taageero ballaadhan kala kulmay dadweynihii garoonka ku sugnaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye axmed cabdidheere suldaan maxamed suldaan xasan barre wasiirka duulistii hawada farxaan aadan haybe iyo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha cabdirasaaq waaberi rooble maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan soolteelko iyo gudoomiyaha gobolka maroodijeex ee xisbigan maxamed iid dimbiil ayaa garoonka ka hadlay socdaalkaygan wuxuu ka mid yahay socdaal aanu ku marayno garoommada waddanka oo dhan garoonkan waa garoon weyn gacmahaynuula tegi doonnaa innagaa isu wada tegi doonna dhisan doonna insha allah u sii dhaqsaa isagoo garoommada caalamkaa la mid ah ayaannu halkan isku soo noqon doonnaa haddii ilaaha yidhaahdo waa maalin wanaagsan oo qiimo weyn leh inaynu maanta fursad u helno inaynu garoonkan barre stadium aynu aasaaskiisii bilcanno isagoo guddoomiyuhuna maaragtay inoo laadi doono kubadda si uu dhallinyarada u dhiirigeliyo murashaxeenni muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee dhallinyarta dhex socda wuxuu u dhex socdaa inuu dhiirigeliyo in kor loo qaado ciyaaraha wuxuu xasuusinayaa maayarrada inay garoommo inoo diyaariyaan oo wixii iminka ka dambeeya meelaha bannaan ay bixinayaan inay garoommo badan ka baxshaan runtii waxaanu leenahay dhallinyarada waxaanu leenahay waxa loogu talagalay inaad isdhexgal samaysaan niyad wanaag ku ciyaartaan akhlaaq wanaag samaysaan farxad bay noo tahay maanta inay garoommada maanta uu marayo guddoomiyaha iyo wasiiraduaba ay marayaan ay yihiin garoommadii aan u dhisnay qaybo ka mid ah waxaan aad iyo aad marka hore ugu mahadnaqayaa dawladda hoose oo bixisay maxaa ahayday garoonkan uguna magac daray ilaahay u naxariistee suldaan barre warsame shire taasna waxaynu diga waaninaynaa inaa hamigiinna ku beddeshaan waxbarasho markaa waxbarashada ka soo baxdaanna aa ku ciyaartaan garoommada layndii samaynayo runtii ee laydiigu dadaalayo murashaxa jegada madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa tilmaamay sidan waxaana baryanayaa kooxda ciyaaraysa tababarayaashoodii intii soo diyaarisay waxaa kaloo aynu bogaadinanu mahadnaqaynaa dawladda hoose garoonka waxa loo bixiyay suldaanbarre nin qaran buu ahaa dhallinyarada ku ciyaarta waxaanu doonaynaa inay suldaanbarroo kale noqdaan garoonka xaafadda sheekh nuur ee kilidhka wuxuu ka mid ahaa goobaha uu booqday gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee uu qalabka ciyaareedna gaadhsiiyey wasiirka ganacsiga somalilan cumar shacayb maxamed ayaa goobta hadalkii ku habboonaa ka jeediyey runtii sidaa la socotaan xisbigan uu hormoodka ka yahay guddoomiyuhu maaha markii koowaad iyo markii labaad ee uu magaranaysaa ee dhiirigelinta maxay tahay dayarta dhallinyarta maxay tahay ciyaartooyga uu dhiirigeliyo tan waa mid joogta oo xisbigana runtii ah lafdhabarta u ah gudoomiyaha ahna murashaxa jegada madaxweyne xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa la hadlay dhallinyarada ku ciyaaraysay garoonka xaafadda sheekh nuur aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xaafadda sheekh nuur sidaa u soo camirteen garoonka ee ciyaaraha u danaynaysaan ee dhallinyarada u dhiirigelinaysaan waxaa kaloonu hambalyanaynaa ciyaartooyga tababarayaashooda siidhiwalayaasha dhallinyarada waxaannu ka doonaynaa ciyaaruhu inay noo soo kordhiyaan saaxiibtinimo dulqaad adkaysi shaqo iyo daljacayl iyo ininka ciyaartooyga inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabto intaa kadib murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye ee saraakiisha uu hogaaminaya waxay kormeer ku tegeen garoonka xawaadle oo ka tirsan degmada 26 juun taageerayaal tiro badan oo garoonka ku sugnaa ayaa muujiyey taageerada murashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye uu degmada ku leeyahay
wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan cabdirashiid ismaaciil kaahin iyo maayir ku-xigeenka caasimadda hargeysa cabdicasiis maxamed xaashi cagaweyne iyo xubno kale ayaa hadallo kooban madasha ka jeediyey. allahu akbar, somalilan ha noolaato, doorashadana waynu garanaynaa soo maaha, musabbixina ha noolaado, ha guulaysto. allahu akbar. guddoomiyuhu wuxuu u soo baxay iyo xisbiga kulmiyaba waxay u soo baxeen inay dhallinyarada dhiiri geliyaan ayay u soo baxeen. mana aha rabadaankan oo keliya ee rabadaan walba guddoomiyuhu ilaa rabadaankii hore sidaas ayuu ugu soo baxayey. muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbul xaakimka kulmiye ayaa tilmaamay in kormeerkiisani uu salka ku hayo dhiirigelinta da'yarta ku howlan xirfadda kubadda cagta. waxaannu idinka rajaynaynaa dhallinyaradu inay sameeyaan ciyaar qurux badan oo ku dhisan hab iyo hannaan fiican, inay bartaan oo ay noqdaan ciyaaryahan waaweyn oo u ciyaara qaranka Soomaaliland oo dhan iyo caasimadda Hargeysa inay ka soo baxaan ciyaartoy xawaadna ku soo tababartay ayaannu mustaqbalka rajaynaynaa. gudoomiye muuse biixi cabdi waxa uu booqashadiisa ku soo gabagabeeyey garoonka dhalinta kacaanka oo ku yaala degmada Ibraahim Koorbuur, halkaasoo ay ku sugnaayeen taageerayaal xisbigan ku abtirsada. wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdirasaaq waa bari Rooble, xildhibaan Cabdiqaadir Indho barasaabka gobolka Maroodijeex Cabdilaahi Jibriil Gaaxnuug Buraale iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada Maxamed Cilmi Aadan Ilka Case ayaa hoggaanka kulmiye ku bogaadiyey sida ay had iyo gooraale dhallinyarada u garab taagan yihiin waxuna ula qabtaan. gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi waxa uu tilmaam ka bixiyey sida xisbiga kulmiye uu heeganka ugu yahay horumarinta iyo dhiirigelinta dhallinyarada. magaca ku ciyaaraysan waa Ibraahim Koodbuur taariikhdu leeyahay waa taqaanin, mar haddaa magaciisa xaafadiisa ku ciyaaraysan waxa la idinka rabaa inaa akhlaaqdiisii iyo dabeecadiisii iyo halganimadiisii iyo hogaamintiisii lahaataan. suurtoobi mayso magaciisaannu ku ciyaaraynaa haddana waxaannu noqonaynaa qolo wax badan oo qalada samaysa. waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan ciyaartooy ciyaarta si fiican oo hannaan leh u ciyaarto u tababarata.